له marka aniga saasan ku sigtay in xubnahayga laga baxo marka alxamdulillah aniga hada meesha fadhiyano wax walbana qadar ilaahay buu ku dhacaan qadar ilaahay baana meesha si beeshay alxamdulillah waan ilaahay way ku soo badbaadiyay dadka dhibaatada ku geysanay ma dad dalka gudihiisa ku sugnaa ama waa dad dalka meel ka baxsan ku geystay wallahi dalkayga dhexdiisa baa qasadan waxay ku dhacday أنا دلتي بجوبي هذا أنا الحياة هي ضد الجانب الجانب عند القولة صح ضد الجانب بإيجي مثلا مركب أوكي الحمد لله مركب ضد كوجيني ما ضد صوماليا مسعيري بختوري بقى يعني فيها بقى قاتل ما هي ضد صومالي بهاين لو مركا ساس إيجي أنا دتك جانب نسخة بحين كم يسمى قاعدين لكن ده صومالي بعها مركا يجني مركا وطاي يعني أندريم يا برينك ملوك هذا العائلة هذه أسماء لكن واحد جعل الله يمر بيننا بالشغل برينك الصوت مركي أيد علي إنه قاتي مركو رجعت بقارن عيد بعد علي إن كانت أوجه شيء ما كسم كفياشة runtii de su'aasha dadka badanka isweydiiyeen baxaa qaab noocee ba su'aalaha badankood marka dadka weydiinayaan qaab noocee baad saas ugu gacan gashay nimankaas ku dhacay sometimes dadka qaar waxay aaminaan in aniga baabuur iska raacay baabuurkaasna uu markaa ila tagay haddana ma ahayn sida waxay ahayd goor marka aruura wiilku yarka hadda xaafadda noogu yar baa ila socday adeeg baan soo doonay marka laamiga maraayay aruur bay ahayd marka dadkuna way ku yaraayeen marka waxa sanka ii marayeen isla markaa aniga dhan ibedelay exactly waan dhawaaqi markaan dhawaaqi karin aan ordi karin runtii waxaan noqday qof markuu riyo ku jiro markuu riyootay marka riyadu ku jirto ordaysid markaan aad ordi la adahay taas camal waay marka waxaas leeyahay ma ordi mana ordi karo waan taaganahay waa dareenkaaga baa shaqeynay laakiin adiga awoodi baa bay marka tartiib marka gacanta ay soo qabteen gaariga soo galay imaysan qasbin waayada qasbi lahaayeen dadka waaxiga baa arki lahaa markii ay saas dhacday inay yaraa kula socday wuxuu asug sameeyay miisan inuu la hadlo ama qayliyo ama dhibaatada aan u sheego waxa lagu geystay wallahi waxana asay meesha muusan dareemin ba way wuxuu i jiray in cabaaray oo yarbi i jiray xoogaa i jiray isla markii daqiiqada markii dhacday wixii sanka la ii mariyay daaqada la furay waa la soo galiyay gaariga la ima qasbina gaariga markaan galayna markaas ma qiyaasi karin dadka ku jiro gaariga dadka ku jiro ma qiyaasi karin waayo qof walba wixii inuu qonay saddex qof inuu qonay waa warwareeray markaan gaariga galay baa miyir iigu dambeysay wataa markii ay miyirka u ka tagay halkee miyir kugu horeysay oo indhaha ku soo qaad wallahi waxa miyir iigu horeysay markii meesha la igeeyay oo meesha aan tagay baa miyir iigu horeysay oo waliba markaa biyo baaldi qabow oo markaa zaad u qabow biyo ah bay igu shubeen markay igu shubeen aan booday still anigoo dabaqsan oo markaa jihadii iga lunsan tahay baan kacay marka qayladii markaas soo kaxaysanayeen qayladeedii baan ku qayliyay markii meesha u horeysay kugu dambeysay meelka qaabka u galan baa qayladii baan markaas la soo booday still waxaan malayaa marka in banaankii aan joogo ama cid iga qaban karto marka waan dabaqsanaa marka waan qayliyay markaan qayliyay askariga markuu igu dhuftay laad gadaal buu iga soo dhuftay in cabaara meel fog buu igu tuuray marka askariga ma ragaan ula socdaan dadka qabaa dawladda wajigana waa u xiran yahay marka uu i garaacay oo ulbay igu garaacay markaan qaylada joojin waayay waan wareersanaa marka waan uu garaacay zaid bii garaacay ilaa hadalkii aan kari waayo i garaacay
markii saas lagu garaacay oo ciqaabtaasi amaday waxyaabo ma jidhaa wax hadal ah oo ay kula wadaageen ama ay kula hadleen ama ay ku dhaheen والله مركي اسو مش قراعي أسكرين تجوين باقبي أو اسمه ده يعني مش وحاول مش أو دتك لو قشطة يعني دتك ليه ولا غلبت المسؤول حس ده يحاول يعني ها sometimes حس ده حبس واي حبس لو كاني وحاول دتك يعني محابس أو حبس هذا مركا هذا حبسي مركا له هذا واحد يسوي سؤال محله سوحي هذه حبس تاي ها ماشي هذه حبس تاي حل وسو سوحي سؤال قاب دربدن أو مركز أن جواب وايد هذا مركز أسكرت أركو أما أسكري ضد كان فتاة مركز أركو حسرة ماشي ما ماشي ضد روح الحرج ربع هذا ماشي إلى من قط حبس هذا وحي إيميل بروفيشنال وحوام ولقي أنا كنها nololka ku xiran qaadka u dhisan tahay qaadka u samaysan tahay sida tahay macni waxa oo markaas qiyaasin kartid waxa sida Soomaaliya ma dhex joogtid ha bas leedahay sometimes laakiin ninkaas ii garaacay ma ba ilaahay amarkiis meesha marka aad ku sugan tahay marka aad ku xiran tahay ama kaliya dad ku jira mise dad kala saas kala ugu tagto may kaligay kuma jirin waayo gabdho badan ku jirin ayagana oo sideedo kala balaakiin iga soo horeeyay yaa ku jira meesha oo in xoogaa iga dulsanaayeen marka oo xoogaa fiican bay jireen ismaan hadli karin waa chance iskula hadlaa inana masinin waa tahay haydii markii lagu garaacay meeshii waxa xigtay kan Soomaaliya buu ahaa ninkani garaacay exactly imuusan naxayn markaan adeerow baan dhahay walaalow baan dhahay sometimes wajigiisa maan garadeynin oo wuxuu yahay ma aqaanin markaan walaalow ama adeerow aan dhaho buu igu sii daray marka waxaan arkay ninkii ajnabiga ahaa baa arkay soo garaacayo oo nin ajnabi ninka ajnabika markuu soo orday meeshuu soo galay ninka Soomaaliga buu dharbaxsho galiyay waxaan taranturay banaanka u bixiyay maxaa u dilaysaa booda sab u dilis hataa kii cadaanka haba in hayo ajnabiga haba in hay kii Soomaaliga ahaa dalka ku dhashayna sidii wax ku dhacay dhaawaca ahaa wiiga dhaleeyay iga sameeyay wuxuu galiyay kii ajnabiga wuxuu galay meel yar oo adiga dalka sameeysan caadi la isku arkaayo oo marka rumud lagu farayo qoranto rumud lagu xiraayo meesha buu galay meesha marka lagu hamo lagu kala baxsan karo xadaa waa inaad kadalood aan saan u fiirsado waliba ku laabayna ama tagnaata meesha saan nasteexo arkay marka wadkii garaaci ha gabdhaha meesha ana hadda aan ku jiray ku meesjeeday barxadkii ha leeyahay markaas way iga fogaan hadalna isma gaareen tahay markii meeshaas uu galiyay oo ninka cadaanka uu ku yimid ninka Soomaaliya sidii baa lagu soo daay inta dhibaato kale lagu geystay laguma soo daynin runtii dhibaato kale oo markaas askarigaas oo jirdilka ay sameeyay ma ahana dib kaleeto oo waxa weyn markii cirbadaha dhicaanada liiqa qaadayay cirbadaha zaid waxaan u badnaa oo marka la igu mudaayay waxay ka yihiin waa fahmi waaye cirbad madaxa lagu mudaayo mid dhabarka lagu mudaayo mid jilbaha lagu mudaayo waxay yihiin baa fahmi waaye markii cirbadahaas kale igu doodaraayo kale waxay qabanayeen kuwa waxay qabanayeen Soomaali ahayn laakiin Afrikaan madow ha bay qabanayeen marka waxa igu xanuun badnayd markii cirbad dhabarka la iga mudaayay bay igu xanuun badnayd marka ayaga ay qabteen cirbadii markii dhacaanadii wixii ay qaqateen maalintii labaad maalintii saddexaadna waxa la isaaray computer baa la isaaray oo aniga dhan ujeedada marka ay caafimaadka ama dhacana ay ka qaan ku saaray xilligaas ma ka waraysan markaas may isla habeenkii baa ka war heli doonaa habeen subaxii la soo xiray habeenkeedii
waxaan arkay meed la bixinayo baan arkay meed la bixinayo markaasaan dareemay inay meesha tahay meesha dadka lagu qashto inay tahay baan dareemay baan arkay markaas qofku markuu muslim yahay iimaan uu leeyahay waxyaabo badan buu isku xijinayaa hada qofku gaalka markuu yahay uu kala haduu meesha sokol ku xirnaana una arki lahaa cinqaabta meesha ka socota meesha isku dhex mirjin lahaa meesha isku dhex dil lahaa runtii dee qof muslim markaa tahay iimaantay ilaahay jidad badan buu ku yeeray iisoo mar marka dhibaatada aad ku jirtid marka ilaahay haddaad ku shukrisid ilaahay 100% inuu kaa badbaadiyo markii aad nimcada ku jirtidna ilaahay inaad ku shukrisidna iyadan aad muhiim tahay markasta aniga marka la soo xiriba runtii waa cibaadada ilaahay kama tegeenin oo cibaadada ilaahay ku taagnaaha adkaar baan akhrisanay quraan waan akhrisanay hadana saas tahayna waxaan cibaadaysanay anigoo bilaa xijaaba marka ma awoodi karin xijaabkayga aan soo qabsado waayo ilaahay markaas ma ii baranayna cibaadadiisa aan marka waan tukanayay waan ilaahay baan bariyay ducooyin baan akhrisanay markasta ay bixiyaanba adkaar baan akhrisanay hadana waxaan aaminsanahay ilaahay tala saarashadii aan tala saartay iyo waalidka ducadiisa islaamka ducadiisa in ilaahay iiga soo badbaadiyay watahay waa dhibaato aad u xaqiiqatan oo muruga ah markii ay intaas dhacday oo caamalayaal qaaday computerka lagu saaray waxa ku xigtay in lagu dhaho oo lagu sheegay in jirkaaga in la baxo mise sidee maxaa waa dareemi kartaa adiga laftirkaaga waxaa meel markay habeenkii la gaaray midkii la bixinayo mid la bixinayo subaxina computer lagu soo saarayo way computerka kaliyaha loo soo saaraya waa dareemi kartaa marka ani maanta koowaad habeenkeedii baa dareemay inay meesha tahay meesha in la isku qashto maalinta saddexaadna gaar yar oo meesha ku jirtay ayadana baa la qalay oo markaa iyada wax yar iga fogeed marka maalinta saddexaad baa iyada qaliinka lagu sameeyay keliyii waa lagala baxay marka waxaan arkay iyada meyd saaran meesha loo wado maxaa lahaa bahalka meydka la geliyo talaagadaha meydka la geliyo markaa loo sii wado maalintaas runtii alxamdulilah inaan waalanin baa ilaahay ku mahdiyey waana macnihii zaaid baan isku bedelay xaalad markaa la malaysan kara meesha inad shoog baan qaaday waayo qofkii shalay halka kaaga muuqday oo haddana isagoo meyd la wado waxaa waaye wax markaas zaaid u xanuun badan waaye markaas aniga dhimashaba kama cabsanin waayo qofkii naxtintii baa iga tarabadatay naxtintii markay kaa tarabadatay xadkeeda ay dhaafto cabsida dhan way kaa tagaysaa runtii markaas aniga cabsida dhan way iga tagtay waayo qof waxaa marna shoogsan marna cunto maan cuni jirin biyana maan cabi biyuhu waan diiday cuntadoodana waa diiday runtii zaaid baanan u gaajaysnaa oo gaajo zaaid ah bay haysay oon zaaidnahana runtina iyo carabkana markaa waa caaleen markii xilliga computerka iyo waqti markay bilaabatay garaacista faraabad iyo jidilka laga daayo maalintii ugu horeysay baa iigu dambeysay garaacista iyo jidilka iyo waxaad moodaa kan cadaanka inuu iiga naxariis badan haba iyo qashee laakiin niyad dhiska markii la dhaho iyo xagga niyad dhiska markii la dhaho iyo inuu niyad markuu meesha ugu soo galaa remote-ka asigan baa haystay marka meesha isoo gal kala buuniyad idis jiray iyo aan isbidi jiray halka marka aan ku gacan seeraayay aan ku qalqaylinahay waayo asxaan iimu aaminsanaayo wuxuu iga sabanaya inaan biyaha cabo cuntadana cuno marka qofka hadii biyo cabin kaliyihiisa ma la ogaan karo computerka way adag tahay qofka biyo badan inuu cabo waayo marka igu markaas igu sabi jiray inaan biyaha aan cabo aan biyaha marka waa daadin jiray meesha adiga marka ma horay baad u ogeed in markii aad ka horeysay in kale la baxay biyaha naadintay ma horay baad u ogeed qofka haddii uu biyaha cabo way ugu dhalatay may aniga isma waa wax igu dhashay waayo qofka sometimes isbitaalada markaa dadka waxa arki jiray dad lahaay computerka kaliya laga saarayaa biyacab
marka waxaan isleeyahay biyaha iska daysadba kaliyaha ama qarsoomaan la arki waaya laakiin aqoon dheeri ah uma aan lahayn waa iska daysad صح waka markii biyo aad diiday cunadii aad diiday meesha ku xirnaa waqti ayaa soo gaaray waqtigii baa soo gaaray alxamdulillah ilaahay baa igu soo badbaadiyay runtii xamar walaal maadaama meesha aad tagtay dadkii kula midka ah dhan gabdhihii la wada qalay oo kaliya laga baxay jirkii laga baxay adigina aad meesha joogtid ama u diyaarsan bal noo sharax bal qaadka oo ilaahay subhanahu wa ta'ala kaaga badbaadiyay dadkaas runtii ma hadlo noloshaada wan second hadii kaaga dhimaan tahay innaka wax kaama qaadi karto innaka maxna kaama bedeli karto aniga noloshayda waa inaan noolaado baa ilaahay ii qoray runtii in dilka sirka ah oo ninka ii geysta maahan jirkayga wax kaloo hagatin ah meesha soo gaarin oo hagaaba halkaas buu ilaahay iigu asturay in iska bacayna muslimiinta baa ii soo ducaynaysay xaramka dad islaam baa ii istaagay oo ilaahay ii baryayay inuu ilaahay cadowga igu soo badbaadiyo muqdisho dhan waa la iigu ducaynayay hadda caawada masaajidada qaar baa la iiga duceeyay inuu ilaahay iga soo furdaamiyo iga soo badbaadiyo dadkaas markii computerka runtii la saaray waxay sameeyeen bay ugu arkeen oo markii la iga soo saarana la iga waayay waxaad in ku jirteeda ama kaliya in ay wada buro tahay markaas ay soo naceen markay kadib aniga la saaray computerna la iga waayay waxyaabii badnaa markaas ay soo naceen ما شاء الله صح markii la soo saaray oo computerka markay saarayeen subax ma la harmaa in bulshadii ay fiican qaabka u soo baxday meesha si leeyahay soo badbaadiyay aba meesha ku jira computerka saareen jawaabihii bay arkeen siday ku dhaqmeen siday ku saareen runtii si fiican bay ila dhaqmeen oo markaa way soo saareen markaas waxay isku dayay inaan wax cunno ama aan cabo iimaanay bariya wax in wax cab baan ka diiday hadaa wax cunno ama wax cabo wax is ahay ama lagu qashtaa صح iska iskaga dhimo adiga inta lagu qalan lahaa oo kala dhantaalan aad dhiman lahayd hadi iska iskaga dhimo maslahay markaa ka bacdi adiga waxaa dhacday in markay iigu hal ii garan waayeen intaan naga saara tuura waxay soo saareen goor 9 saac iyo wax kala ah dadkeeda bay telefoon ba u soo direen ayaa soo diray صح xaafadani bay telefoon u dixineen 10 saac iyo barba gabadhiin waa helaasiin صح marka 10 saac bar markay dhahayn aabaa markaas iyo hooyo iyo waalid way joogeen hooyo markaas ayada koomay iska jirtay iska حتى rasmeed maalin ka dambeysay way sii darsanaysa hooyo iyo xaafadoo dhan ba dadkoo dhan walaalihii oo dhan marka waxaa dhacday markaas 10 saac iyo bar 9 saac iyo 20 bay iga soo qaadeen meeshii goobtii iga soo kaxeen marka laba askari baa dhankayga fadhisay askari inta igu fadhiyay mid kale inta labana wixii ku jirtay shirka intaana u gudbin soo gaaritaanka markii hore mawaaridka biyo la soo xiriiri jireen maalintii kow horta maalintii labaad markaan dareemay meesha inay tahay meesha dadka xubnaha looga baxsado inay tahay baa waxaa ka codsaday ninka oo ninka cadaanka ama ajaanibka waxaa ka codsaday inuu waalidkii hal mar ii waco marka anoo ku cataabay kuna inay baryayaan marka wuxuu ii yeelay inuu ii waco hal mar bas ninka telefoonka ii hayay buu wacay telefoonka muu daaray waa la ii soo wacay marka ma wala hadli karin waayo codkayga dhan buu wuxuu xabeeb uu xirmay zaad buu u xirmay mana hadli karin oo qofka hadalkayga ma dareemayo markaan laga qabtay oo telefoonka laga qabtay baan hadli waayay markaan isku dayay inaan kor u qayliyo dadkii markay walaalkay iyo hooyo markay hadalkayga maqleen hooyo sarjoog bay ka dhacday hooyo sidiiba kooma ku gashay sida tacbaan ku noqotay markaasaan u sheegay in meeshaas aan ku jiro leena soo duceeyo leena soo cafiyo
markaas darkeyga dareeman inaan halkaa ku jiro. meesha marka meel la yaqaano oo dadku ay yaqaanaan miyaysan ahayn? wallahi meeshaas ma dhihi karo waayo meeshaas haddaan ogaan lahaa waa sheegi lahaa gabdhaha Soomaaliyeed oo ku jira maan kasoo badbaadin lahaa waan kama cabsada dhicina waayo haddaan aqaano waan sheegi lahaa meeshaas ma aqaano markii la galinayna waa suuxsanaa markii la isoo bixinayna anigina waa iska qof waxaan iska ahay tacbaan haddana indhaha baa ka xirnaa oo waxna aan arkaynin ma garan karo markaa laakiin waxaan garan karaa meesha inay tahay markii la isoo saarayay baan fahmay meesha dhulka hoostiisa camal bay ahayd oon kor baa soo baxeen hoos bay dhulka hoos guryaha dhulka hoostooda inay ku jiraan camal bay ila ahayd. intaad meesha ku jidhay wixii kula naxdin badnaa oo aad aragtid taawad markaa ka soo kacday ma xasuustaa? wallahi waxa iigu naxdin badnayd waxay in habeenkii meedka la saari jiray ay ahaayeen dad Soomaali ah oo markaas hooyadii aabana dhaleen isla markaana la waayay oo marka loo maleynayo inay tahriibeen ay badaha ku dhaceen ahayn inay tahriibin oo meeshaas ay ku jiraan dhalinyaro badan oo saas dhacday oo loo maleeyo inay tahriibeen oo meelay jaani cirba dhigaan la waayay oo markaan tahriib aan lagu tuhmi jirin oo la waayay way jirtaa waxaan markaas aan aqoonsaday in meeshaas dadkaas lagu qashay ama lagu dhameystay sidoo kale dhan ciyaalka yarka oo maalin kasta iyaga la naadiyo oo la waayo oo markasta cunug baa la waayay cunuggaas dibna looma arko maalin kasta way ka dhacdaa maalin horeeda saa u arag social media waa la socotaa umaleyna cunug yar oo lasoo dhigay oo xaafadooda agtooda aabihiis intuu waayay lasoo dhigay si uu keliyihii iyo ka maqan yihiin oo ku jirta ay ka maqan tahay lasoo dhigay social media ku socota maanta baa ka arkay marka wax caadiyan bay hadda ka noqotay oo marka oo la ogeyn cidna aan daba galin ayagu la ogyahay haddana la iska nasaabo marka in la raadiyo ama la daba galo waa tahay qisa aad u murugo badan markii ay ku soo qaadeen oo meesha ka soo qaadeen oo gaariga ku soo qaadeen halkeebay ku keeneen runtii tan iigu naxdinta badneed waxay igu qabsatay gaariga dhexdiisa ninka gaariga igu soo qaadeen baa waxaa dhacday mid ka mid ah kuwa gadaal ila saarnaa inuu baskoolad lasoo baxo oo markaa inuu madaxa jabiyo rabo baskoolad marka la sabaxay wuxuu yiri waan dilaynaa meelahan baan ku tuurinaa waayo wayna sheegaysaa kii darawalka baa gaariga istaajiyey wuxuu yiri ma dili kartid waa ismurmeen kii darawalkahana wuxuu la soo baxay Soomaali waxtaas gaariga exactly kii darawalkahana wuxuu la soo baxay asigana baskoolad هنا كل دفعة تاني وين كل دفعة نيها هذه كسب بدادي محط كرت محاول جلسة هي كسب بدادي محاول جلسة ما تورس مركا هذه يصير كل شيء ولا يصير كحيي مركا والتورة إلا بمركز إيسو إن ضد إسلامي إيلي عنقلي ومركا إهلي وسفي عن إلا معاملي إلا والدك يدك إهلي magaalada muqdisho meel dhexdeeda ah xagee wadada weeyaan runtii magaalada dhexdeeda bay ahayd xilli markaa waxay ahayd oo gawaaridu zaid u badnayn oo markaas istaagnayn ciidamada oo markaa taraafiga oo markaa fadhiyay maanay ayaga taraafik markasta ma shaqeyn waayo gawaari badan oo markaa ay kala hagayaan meesha ma mareynin oo zaid ma mareynin waxay ahaa meesha تلح إسكسها تلح بهاد ومركها ليوسف توري قارب مكوسات توري بقى أرض بوسكو تابتي وعيدنا مقبرين عندنا كمضب أردن إسلام جاد لي باقي قيلي وميش كان دواء باقي قيلي ومركز إننا مركا قيلو ذي عندنا واحد بقى لي وح حيصير وح منا مجنون الدولة هذين وقتين عندنا ما دبقلين عندنا معير سنين anigii wadadkii ugu mashquuleen arday jaamacad ka soo baxday runtii dad badan way jiraan oo markaa yaantay meesha iga badbaadiyeen isku baranay ilaa xaafadii isku baranay ayagana waxaan leeyahay abaalkooda ma gudi kare waayo
dad laamiga iga qaaday biyaha igu rusheeyay waalidkayga ii wacay bay ahaayeen. markii ku tuurayaan miir ma qabto adigu mise waa daas waa miir waa qabay laakiin de miir maxaa waxa waaye qof asigii maxaa ismaamuli kara ma ahayn qof